السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkan waxaan ku sharxi doonaa waxyaabaha basics-ka uu u baahan yahay qofka editor-ka inuu yaqaano. waxaan isticmaali doonaa CapCut oo ah mid ka mid ah applicationada ama software-ada wax lagu edit gareeyo ee ugu fudud. marka hore aad furto project cusub oo aad ku dhex furto CapCut, waxaad arkaysaa dashboard-ka noocan ah. qaybtan waxaa kasoo muuqanaya muuqaalada, qaybtan waa imports-ka iyo kalibyada aad soo geliso. featureska aan isticmaali doona halkaas ayay ku taxan yihiin sare. qaybtanna waa time frame-kii halkii aan ama timeline-kii waa halkii aan soo geli lahayn kalibyada aan jarjarayno. so marka hore ugu horeyso magacaan u bixino projectiga, let us say video 1. okay, save garayn, name already exists, magacaas wuu jiraa, video 121 iska dheh. okay, waxaan soo gelinaynaa marka hore clip yar. halkan waxaa igu jira background iyo kala duwan oo aan u adeegsado marka aan sameynayo muuqaalada. tusaale ahaan kan aan u adeegsano as a background, tusaale ahaan clipkan hadda waa uu soo galay, waa short clip. waxaad kaloo background ahaan u adeegsan kartaa sawir. okay, kani waa sawir jpeg, haddaad aragto waa sawir. mp4na waa muuqaal. midka sawirka ah ayaan soo qaaday, waxaan soo dhigay timeline-ka halkii waxa lagu jarjarayay. kaliya waxaa u baahan tahay inaad soo qabato oo aad soo jiido. kadib waa kan, waa vertical amaba dherer ahaan waxa uu kusoo baxaya muuqaal loogu talagalay TikTok-ka amaba shortska kale ee reelska Instagram-ka. laakiin haddii aad YouTube wax u edit gareynayso waa inaad doorataa ratio-ga, halkan aad ka bedeshaa, aad ka dhigtaa 16:9 waa balac ahaan. kadib waa aad yareynaysaa background-ka aad isticmaalayso. falaartan markay soo baxdo waa aad qabanaysaa, waxaad ka dhigi kartaa 90°. kadib waad weyneyn kartaa. si easy-ana halkan waad ugu wareeji kartaa, rotation aad ku sameyn kartaa haddii aad rabto. okay, this is our background. haddii aan replacement ku sameynayo tusaale ahaan background ama clip halkan ku jiro, waxaan qaban karaa inaan sameeyo sidaasi. aan dul dhigo keliya, aan dhaho replace, waa aan replace gareeyay oo mid kale ayaan ku bedelay. waa haddii ay dhirar ahaan isku mid yihiin amaba midkan sare uu dheer yahay ayaad isku replace gareyn kartaa. haddii kale waxa uu ku dhihi karaa waa uu ka gaaban yahay. kani waa background-ka. dhammaan muuqaalada marka waxaa lagu dul sameynayaa background-ka. marka hore anigu waxaan adeegsadaa qaab ah foldero. right click haddaa halkan bannaan aad ku dhahdo, aad new folder doorato, new folder-ka aad sii doorato, right click aad dhahdo, rename ayaad ku sameyn kartaa. waxaan dhihi karaa halkan mathalan images. okay, wixii sawira halkan ayaan gelin karaa. folder kale ayaan sameysanayaa oo aan gelinayo wixii clip ama video tusaale ahaan oo aan rabo inaan jarjaro. waxaan u bixinayaa clips. clip haddaad rabto inaad soo geliso waxaa u baahan tahay double click inaad ku dhahdo halkan, kadib aad import soo dhahdo, kadibna aad soo geliso
kilibki aad jeceshahay in aad adeegsato. Waxaan adeegsan doonaa kilibkan tusaale ahaan waxaa lagu sameeyey AI. haddii aan rabo inaan marka kusoo daro editingkii, waan soo qabanayaa, waan soo dul saarayaa keliya si backgroundka qayb looga arko. waxaan sameyn karaa marka kilibkan inaan yareeyo. intuu jeedaan, laakiin backgroundkeeni waa uu yaryahay, inaan jiidaa oo aan dheereeyaa. hadda waxaa u jeedaan muuqaal backgroundkii oo kana iyo kilib dul saaran. waxaan sameyn karaa haddii aan rabo inaan frame halkan ugu sameeyo oo cad aan ku wareejiyo kilibkan shidan. CapCut-ka ma lahan outline ama maxaa la jiray stroke ama waxyaabaha sida Canva ama Photoshop lagu sameeyo ma lahan. sida awgeed anagu waxaan isticmaalnaa background cad. background cad si aan usoo geliyo qaybtan kilibyada kuma soo daray maadaama backgroundkaasi cad uu iska sawir yahay. qaybta imageska ayaan galay, halkaasi ayaan waxaan soo gelinayaa mathalan background cad ayaan raadinayaa, soo geli. kilibkan background ahaan ayaan u isticmaali doonaa. sida awgeed aan soo qabano keliya aan halkan dhigno. marka hore waxaan hoos dhigaynaa videoga aan rabno inaan background ugu dhigno. laekeysii backgroundwi, balse hadda waxaan u jeednaa keliya in halkan uu kasoo muuqdo. maadaama uu backgroundkeenu vertical yahay, waxaan ka dhigaynaa horizontal. waa wareejinaynaa. marka aan wareejino hoos ayuu ku qarsan yahay, laakiin weli waa aan zoom gareyn karnaa. zoom ayaan ku sameynay. hadda sida aad u jeedo backgroundkii asalka ahaa ayaa naga qarsoomay, laakiin videogii aan rabnay waxaa ku wareegsan qayb cadaan ah. marka waxaan rabnaa inaan haddii aan yareyno isagoo sidan ah, aan yareyno backgroundkan, aan doorano aan yareyno, islama ekaanayo. saad u jeedaan qaybta hoose ayuu u badan yahay. amaba si aan ogaano farqiga aan sii yareyno midkan weyn. kan haddii aan sii yareyno maxaa dhacaya? still kor iyo hoos ayuu u weyn yahay. marka si aan si isku mida u jirno waxaan adeegsanaa, waan dooranayaa sawirka, waxaan adeegsanaynaa waxa la yiraahdo mask. marka aad ku dhufato kadib waxaad ku dhufanaysaa halkaas. kadib waxaa ku dooran rectangle, waa aad jiidaysaa. waxaad soo muujinaysaa cadaanka keliya inta aad rabto inaad kasoo muujiso. waa kaas labada dhinac markaan jiiday aad u jeedaa waxaa dhacay. haatan waxaan haysanaa muuqaal kaamil ah oo ka kooban background iyo frame cad oo aan sameynay iyo clip video ah oo halkaasi iyaguna dhex muuqda. aan ka soo qaadno in kilibkani uu dhowr kilib yahay mathalan, oo aad rabto inaad dhexda haddaan ka jirayno halkaasi ayaan riixayaa idinku soo celiyo. haddaad rabto inaad kilib aad jarto, halkaasi waa kasoo qaban kartaa, waad yarey kartaa. haddii aad rabto inaad kala jarto split, halkaasi calaamadaasi aad riixaysaa. inaad hubisaa inuu dooran yahay marka hore si aad isla asaga aad u jarto. haddaan rabo kilibkan, marka qaybta dambe ayaan
replacement ku sameynayaa qaybta clipskan galay clip kale ii raadi si aan replacement ugu sameeyo amaba say muuqaalkan kale ayaan haystaa muuqaalkan soo qabo waxaad kusoo dul saartaa halkan ku siidaa waxaa ku dhahay is too short your material is too short so waa u gaaban yahay clipkan ayaa dheer waxaan sameynaynaa inaan iska remove dhahno isla kan aan soo dhigno taa mushkiladeedu waxay tahay inuusan la ekeyn oo uu nagu baahan yahay resizing iyo shaqo kale marka waxaan sameyn karnaa hadda already waa fine laakiin haddii aad rabto in isla tilmaamihii isla sizekii isla calaamadii u qaato halkaasi qayb yar oo la eg ayaad jaraysaa ama waad gaabinaysaa kadib replacement ayaad ku sameynaysaa waa uu aqbalay saa ujeedaan uma baahno inaad cabirka iyo dhinac walba aad ku laabato haatan qaybtan dhexe aad ujeedaan oo saa labada clip halkay ku kala baxayaan waxaad saari kartaa waxa la yiraahdo transitionka waa labada clip markay kala jarmayaan ama soo kala muuqanayaan yani qaabka ay u baxayso clipka kale oo soo galaa so transitions tiro badan ayaa halkan ku jira oo noocyo badan leh midkii aad rabto ayaad ka dooran kartaa salaankan aan qaadano caana oo ay youtuberad badan isticmaalaan soo geli soo dulsaar keliya labadooda dhexdooda waa ka qaabkaasi ayuu kusoo baxay ujeedaan clip kale ayaa soo galay so attentionka videoga haddii aad rabto inaad sii adkayso waa in transitionadu ay la socdaan waxaa la yiraahdo sound effectska xaggay ku jiraan qaybtan u laabo audio ku dhufo audio kadib qaybta music iska xir qaybta ka hooseysa waa sound effects qaybta sound effectska waxaan ka dooranaa midkii aan rabo midkan tusaale ahaan okay ujeedaan tusaale ahaan waa hoos dhig waa ay isla socdaan labadaas intaa waa isla garanay sida clip loo soo geliyo sida loo jarjaro sida sound effect loo soo geliyo sida transition loo soo geliyo marka transitionadu waxay ku xiran tahay haddii aad isticmaalayso script qoran amaba cod la generate gareeyay oo AI voice over lahaa markii ay isticmaalayso voice over sharxaya tusaale ahaan waxyaabahan jumlad walba oo dhamaanaysa ama ay bilaabanayso waxaa lasoo geliyaa clip cadaynaya waxa laga hadlayo clipkaasi marka uu ka baxay transition soo galo oo ah calaamadan kadib waxaa la socda transitionka sound effect yaa la socdo intaasi waxaan u maleynayaa in la wada fahmay halkan waxaad sameyn kartaa mathalan sound effectyada aad rabto mar walba inaad isticmaasho waxaad saari kartaa calaamada xidigta kadib hadhow waxaad ugu laaban kartaa qaybtan ay ku qoran tahay yours kadib waxaad galaysaa sound effects waxyaabihii aad xidigta saartay halkan ayay kaaga soo muuqanayaan oo aad midkii aad jeceshahay dibaad u isticmaalaysaa listigan waa waxyaabaha mar walba isticmaasho keliya ayaa ku jiro hadday music yihiin hadday sound effect yihiin anything so intaasi waa basicska marka
clip caadi oo full ah haddaad rabto inaad jarjarto waa isla sidan oo kale, wax kale oo ay ugu duwan tahay ma jirto. waxyaabo dheeriya oo xooga advanced haddii loo baahdana waa aan sharxi doonaa. Marka intaas ayaan kusoo koobayaa clipkani. Haddii aad ka faa'iidaysatay like saar, hana ilaawin inaad subscribe garayso kanaalkan Qanaadiil. mararka qaar waxaa laga yaabaa waxyaabo iska faa'iido leh inaan iska soo dhigo oo la xiriira xirfadaha online-ka looga shaqaysto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.